haddii aan dhalinyaranahay aniga aan jacaylka waxaa ka dhiganay wax maala yacni ah aan waxba ahayn aan ka dhiganay jacaylka. dad badan hadda qalbiyada ka dhaawacan, qalbiyada ka jabsan oo murugaysan, qaarkood ay xataa naftooda halis u gaarsiiyeen. anagana waxaa ka dhiganaynaa wax yaroo basiid ah oo dhedheel ah. taas waxa loo baahan yahay ma ahan iska deyno dhalinyarada la hadlaya aniga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا وسلامتهين ميلو البؤاد دنيا كجوكتان جنال كأد نقدا ونسان وصدق سيمبا official أنيقونا وحان أهاي مسكين كي هاي صدق أها مركا أصحابتا وحان إذن لاي هاي على السود وهذا رمضان مبارك بشي بركسنات رمضان يعني قدها وقجرنا طبعا كما سو موقان hortiina sidoo Ramadaan uu dhashay ilaa hadda muuqaal oo sidaan oo kale idin soo hor fariistay ma soo gelinin janaalka waana ka maqnaa. taasina waa idin karaali gelinayaa maxaa yeelay waan xanuunsanaa waan awoodi waayay inaan hortiina imaado, balse hadda alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh. waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalkan si share garaysaan si uu dadka kale u gaaro, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa dad badan oo aan janaalkii ku xirnayn oo aan subscriber u ahayn inuu gaaro muuqaalkan. aniga hadda waxaa ii soo dhow waqtigii afurka, waxaa u maleynayaa waxaa ka dhiman adiga 1 saac iyo bar camal ka dhiman, waqti galab ah ayaa la joogaa. waxaan go'aansaday inaan hortiina soo fariisto maxaa yeelay arrin ayaa rabaa inaan ka hadlo. arrinkaasaa igu dhaliyay inaan ka hadlo macnaha oo inaan halkan soo fariisto. sorry asxaabta, microphone-kii ayaa iga dhacay marka asxaabay arrinkaas ayaan usoo fariistay halkaan aan ka hadlo. arrinkaasna wax kale ma ahan bulshadii ama dhalinyaradii Soomaaliyeed ayaa waxay caadeysteen in ay yani isticmaalaan eray been ah. been wax la maqli jirteen in been la isku sheego. hadda koor nina wuxuu dhahay sheekaab idin hayaa. hadda koor gabaru wuxuu ku dhex qabsaday meel magaalo dhexdeeda ah oo bulshadana ay saad u buuxaan. markaas wuxuu ku dhahay inta wuxuu dhahay kaale ilaa hadda maadan dhimanin maxaa dhacay. macnaha inuu dhimasho la doonayo ma ahan, laakiin way wada socon jireen, xiriir ay wada lahaayeen. waxayna mar walba ku dhihi jirtay haddii aan adiga ku waayo waan dhimanayaa, ma noolaanayo. macnaha indhahayga adigan kaa jeclahay iyo eraya saasay ku dhihi jirtay. markaas intuu wuxuu dhahay maxaa dhacay qofkii ilaa hadda waa nooshe iga dabageeb waxa dhacay. kaas waxay dhahday fiiri haddii aan afka wax eray kaa dhaho hamoodin inuu qalbigayga jiro. marka dadka badankooda waxay isticmaalaan erayo yani oo kamid yihiin waan ku jeclahay, kaama maarmo, la-aantaada ma noolaan karo. adiga ma ogeed haddii aad maanta ruux adigoo waqtiga ku luminaya ama caadi ula sheekaysa niyada ay kaaga jirto balse daacad aysan ka ahayn, haddii aad kusoo jiidato erayo aad iyo aad u macaan badan ama erayo asaga qalbigiisa macnaha dhaawac gaarsiinaya markaa ku dhahayo. waxaa jira erey marka lagu dhaho adiga aad caadi tahay iyo erey marka lagu dhaho qalbigaaga taabanaya, marka way kala duwan tahay. kasoo qaad maanta qof ayaa waxaa wada samayseen xiriir, waad isbarateen, waa wada sheekaysateen, waxaa idin dhex maray xiriir jacayl ah. qofkii ugu dambeyn waxaad gaarteen in aad isla socotaan waqti badan ilaa 1 sano 2 sano. qofkaas asagana daacad kama aysan ahayn, balse adiga daacad ayaa ka tahay xaggaaga. ugu dambeyn qofkaas wuxuu ku dhahay adiga waan kaa maarmay, kuma baahni, iska kaydaa. ama asagoo yani waxyaabo kale ku tusaya wuxuu ku dhahay amaan isii ama ay sifooyin kale kugu tusiyay. adiga maxaa dareemaysaa? niyada kaa jabtay, macnaha kuma dhiiranaysid in aad mar kale qof isbarataan oo qofkaasna aad xiriirooda samaysaan. ugu horeyn jacaylka marka laga hadlayo dada waxay u maleeyaan inuu yahay dheedheel ama wax iska caadi ah. jacaylku waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qalbiyadeena ku beeray si aan iskugu naxariisano. jacaylku waa naxariis, waa dareen, waa galkacal aad u macaan badan. qofkii aanan aqoonin hadda inuu barto ayaan rajeynayaa jacayl micnihiisa.
soomaalida kaliya waxay u malayaan jacayl in la wada socdo la wada kulmo maya dad waxaa arkaysaa isla socda 5 sano muddo la eg 5 sano waqti yar miya sanadadaas oo dhan macnaha ma aysan is arkin laga yaabaa in ay is arkeen kaliya 3 maalin ama 4 maalin waa 5 sano isla socdaan ama 4 sano intaas oo dhan waxay iskala socdaan taleefanka okay haddii jacaylku uu yahay wax kaliya ku imaado aragtida ama in la is arko maxaa keenay dadkaas in ay 5 sano taleefanka iska jeclaadaan weligid jacayl wallahi iyo billahi iyo tallahi ilaahay abuurtayaan ku dhaartay jacaylkii waxaa waaye waa wax jiro laakiin anaga ku ciyaarayno haddii aan dhalinyaranahay aniga aan jacaylka waxaa ka dhiganay wax maala yacni ah aan waxba ahayn aan ka dhiganay jacaylkii dad badan ah hadda qalbiyada ka dhaawacan qalbiyada ka jabsan oo murugaysan qaarkood ay xataa naftooda halis u gaarsiiyeen anagana waxaa ka dhiganaynaa wax yaroo basiid ah oo dhedheel ah taas wax loo baahan yahay ma ahan iska deyno dhalinyarada la hadlaya aniga bil ramadaan oo ku jirnaa beenta waa xaraan beenta waa wax la xaaraantinimeeyey haddii aad beenlow tahayne wallahi hadda iska daa maxaa yeelay waqti aa haysataa beentana wax fiican ma ahan aan iska dhaafno gabar walaashaada ah haddii aad maanta isbarataan kula soco si niyad nadiif ah oo niyad wanaagsan ah ha u sheegin wax been ah maxaa yeelay been waa wax gaaban wax yar oo gaaban waayo haddii aad maanta been aad u sheegtid qof way soo baxaysaa ma fahanteen marka runta maxaa kuu diiday inaad sheegto runta maxaa diiday runta waa wax wanaagsan inta dadka ay qalbiyada ka jabi lahaayeen adiga oonan jeclayn qofa waxaa ku dhahday waan ku jeclahay waxaad tahay noloshaydiyo idil wax walba adigaan kaa jeclahay balse waxay kaa tahay been marka ugu dambeysana qof kale xeer la sameynaysaa qofkaasna aad iska daynaysaa wax fiican ma ahan dhalinyarooy aan iska dayno beenta aniga hadda waxaan rabaa qisooyin dab ah in aan idiin soo gudbiyo oo halkan idinkaga soo gudbiyo qisooyinkaasi oo u dhacay si dab ah sida hadda qisadii aan idiin soo gudbinayay Fuaad gabadhii magaceedu ahaa Fartuun waa qiso dab ah xitaa wax yar ah oo been ah qisadaas kuma jirto qiso dab ah waaye qaybta saddexaad aan rabaa dabcan inaan qisadaas idinkaga soo gudbiyo laakiin intaan qisooyinka jacaylka ahayn aan soo gudbinin waxaan rabaa in aan bulshada uga digo in ay adeegsadaan ereyga la yiraahdo beenta been waan ku jeclahay waxaad tahay dunideedii oo dhan adiga ayaa qalbigayga ku qoran ma og tahay haddii aan indhaha kala qaado qofka ugu horeeya aan arko waa kuma waa adiga qofka ugu horeeya aan arko indhahayga adigaan kaa jeclahay iyo erey la mid ah ereyadaas dabcan waa erey qalbiga taabanaya erey markii erey qalbiga taabanaya ay yihiin si fudud ama iska ciyaar ah in aan ku dhahdo ma loo baahno waxaa loo baahan yahay si qalbiga kasoo go'day in ay aad u dhahdo jacayl marka afka laga sheegay aad u fudud yahay dad waxaa jira marka jacaylka macnihiisa dhan haleeya jacaylka waa daacad laakiin yaa ku dhila danaystaha ayaa ku dhila jacaylka qofka danaystaha ah danuu leeyahay maanta gabar ama wiil qofuu danka yeeshay ama gabar haata ama wiil dana yeelatay adiga qofkaasi dan ay ku yani dan ku dheehan tahay jacayl yani ula samaysay okay jacaylkii sharafta ka qaada marka adaa ka qaaday marka beenta iska daa asxaabey muuqaalkan ma sii dhamaystiri kara maxaa yeelay qayb labaad ayaa rabaa inaan ka sameeyo waqtigoo igu gaaban awgeed waxaan kaa codsanayaa haddii aadan subscribe hore usoo saarin muuqaalka dhammaadkiisa ay hadda ku sugan tahay in aad subscribe noo saarto janaalka maxaa yeelay hami ayaan leenahay riyaan leenahay inaan hore u soconaa rabnaa oo aan heer sare aan gaarno balse haddii aad adigu ixaasado adigoo walaalka ah anigu meel ma gaari karo marka asxaabay program badan oo idiin soo wadaa sida short film idiin soo wadaa aad u qosol badan waxaa idiin soo wadaa riwaayado ka turjumaya jacaylka waxyaabo badan aan idiin soo wadaa asxaabteeda qaaliga waan jeclahay inaan mar walba idin hor imaado haddana waqtiga ugu gaaban awgeed ayaan muuqaalkan usoo gabagabinayaa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo mac salaama inta aan muuqaalka xiga dib ugu kulmi doono waqtiga ha idin wacnaado